kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka qaranka TV qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo baaq culus u diray madaxda maamul goboleedyada dalka taliyaha ciidamada xoogga dalka oo ka hadlay ciidamadii shalay gadoodka ka sameeyay magaalada caasimadda Muqdisho hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo xilka laga qaaday lagana saaray xisbiga Jubilee qaramada midoobay oo dacwad ku soo oogaysa ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ciidamada dawladda Soomaaliya oo la wareegay deegaanada ay hore u haysteen al-shabaab Shiinaha iyo India oo mar kale qarka u saaran inuu dhaxmaro dagaal dhiig badan uu ku daato qodobadaas aad kaga bogan doontaan warka qaranka TV haatan waxaad ku soo dhawaataan iyagoo faahfaahsan aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoomiyay kulan hordhac u ah shirka amniga qaranka oo ku qabsoomay aaladda internetka madaxweynaha ayaa dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uga warbixiyay wadahadallada Djibouti kaga furmay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland shirkan waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guleed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana lagu heshiiyay in shirkaasi uu si rasmi ah oo degdeg ah u qabsoomo iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu go'aaminaya goobta iyo waqtiga shirka madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taas oo muhiim u ah xaqiijinta yididiilaha shacabka Soomaaliyeed ee dowladnimada iyo dib u soo celinta qarannimada Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xasuusiyay madaxda ka qayb galay kulankan muhiimka ah wadajirka iyo in loo tanaasulo danta guud iyada oo la ilaalinayo dowladnimada ay shacabka Soomaaliyeed ay geliyeen maal iyo muruqba dhanka kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaan maamul goboleedyada dalka ugu baaqay in la mideeyo aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tan maamul goboleedyada dalka wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay inay isla jaanqaadaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dhankooda madaxda ka qayb galay kulankan ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay in ay la sii ambaqaadaan qorshayaasha dowlad dhiska iyo horumarka dalka iyaga oo wadajir u soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ku saleysan wada tashiga is-ogolaanshaha iyo u tanaasulka danaha guud markana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya guutooda waa Yuusuf Raagi ayaa maanta ka hadlay gadoodkii shalay ay sameeyeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27 kuwaasi oo ka cabanayay mushaar la'aan taliya Odawa ayaa sheegay in ciidanka qalabka sida ay qaateen mushaaraadkoodii balse kuwa shalay banaanbaxa dhigay ay macquul tahay inay ka mid yihiin ciidamada aan weli marin tirkoobka iyo kuwa ay cilado farsamo ka yimaadeen diiwaangelintooda oo aan weli lacag la siin sida uu hadalka u dhigay dowladda Soomaaliya ee haatan jirta ayaa ah dowladii ugu horeysay oo muddo 20 sano ah si toos u bixisa xuquuqda shaqaalaha rayidka ee ciidamada kala duwan ee dalka ayaa lagu yiri qoraal lagu daawacay warbaahinta dowladda oo loo tiriyay General Odawa shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob oo ugu horeeyo arrimaha reformka sida la socotaan 2017 waxaa la bilaabay reformkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida runtii arrinta reformka waxaan aad iyo aad aan uga mahad celinayaa madaxda qaranka iyo in laala iyo intii suurta gelisay in arrintaas ay dhacdo runtii arrintaas waxay ahayd arrin ay ka soo baxday waxyaabo muxuu ahay guulo la tilmaami karo oo aad iyo aad muhiim u ahaa reformkaas wuxuu sababay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in lagu sameeyo tirakoob joogto ah wuxuu sababay in la sameeyo galfayladii qof walba ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah darajadii doonto hala haato in loo sameeyo galfayl oo ku dhameystiran yahay dhammaan wax alaalay wixii macluumaad aha ee qofka ku saabsanay waxaa suurta gashay in xuquuqaadka ciidanka mushaaraadka iyo guud ahaan wixii ay lahaayeen ay muxuu ahay ii sheegay si wanaagsan oo qof walba account numberkeeda loo marsiinayo ay muxuu ahay ii sheegay ay arrintaas ayadana u suurta gasho runtii waxaan dhihi karnaa qaladaad badan oo ciidamada ka jiray oo ha noqoto muxuu ahay tirooyin qaldan ha noqoto number ciidan oo isdhaafsan oo waxyaabaha cajiibka ah oo lagu soo saaray ay kamid aheeday laga yaabo hal number in ay wada leeyihiin laba qof ama saddex qof ay wada leeyihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii lagu saxay waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 99 waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaab electronic ah ay hadda mushaaraadkooda ku qaataan
oo ay si joogto ah oo billaha ay ugu qaataan waxaan rabaa marka inaan halkan idin caddeeyo waxaa jira cabashooyin yaryar cabashooyinkaasna waxaa keena runtii mar haddii waxa laga shaqaynayo ay system yihiin waxbaa qaldamaya waxbaa qarrimaya waxaa jira dad yaryar oo colalka ka kala tirtirsan oo ay wax ka halaabeen sidii ama ha noqoto waqtigii systemku ay colalku maraayeen qof colka ka maqnaa oo goobtii colka uu markaa deganaa ka maqnaa ama ha noqoto muxuu ahay dad ay ka gubteen farihii ama wax ka qaldameen systemka ay marayeen ay wax ka qaldameen dadka runtii qaybo badan oo kamid ah waa la saxay oo dibaa loo saxay oo colalka qaarkood mar kale lagu laabtay dibaa loo saxay dadna weli way u dhiman yihiin in la saxo insha allahu tacaala arrimaheeda iyo inaan xalinana waa ku guda jirnaa oo way socotaa hawsha weli way socotaa hadda maanta aan idin hadlaayo waxay ka socotaa dib u sixistii sektorka 6aad guutada 8aad iyo guutada muxuu ahaa ii sheegay 9aad ayay ka socotaa oo tiimkii ay ku maqan yihiin tiimkaasuna ilaahay idankiis dhammaan colalka kale ay shakhsiyaadka ay weli aysan wax u saxmin oo wax ka qaldan yihiin ay ku jiraan way tagi doonaan wayna sixi doonaan inta markaan taa uga gudbo waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin nidaam waxay leeyihiin shuruuc qof walba xubin ciidanka xubin ka ahna inay ilaaliso waa laga maarmaan shuruucdaas qof ma jiri karto meel ka baxsan shuruucda ciidanka ku noolaa karta ahaana karta xubin ka tirsan ciidanka waxaa qasab ah qof walba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan inay raacdo muxuu ahaa sheegay xeerarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ilaaliso nidaamka dishibliinka inay ilaaliso kala dambeynta iyo ismaqalka ciidanka taas ayaan waxaan ku heli karnaa ciidan wanaagsan taas ayaan waxaan ku gaari karnaa hadafka iyo himilada aan leenahay taas ay ciidankeena waxay ku ahaa karaan kuwo waajibka iyo mas'uuliyadda saaran qaranka Soomaaliyeed oo ka sugayo oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugayso kuwo guta taas ayay ku noqon karaan waxaan arkayaa marka ciidamo waxa mamnuuc ka ah ciidanku inay ama gadoodaan ama ay muujiyaan muxuu ahaa ii sheegay qaab gadood inay sameeyaan waa wax meel ka dhac ku ah ciidanka qofka marka wax ka qaldan yihiin ama shakhsiyaadka wax ka qaldan yihiin waxay xaq u leeyihiin sida normalka ciidanka aheeday inay raboorki galaan colalka laga xukumo iyo taliyaasha colalka xukumo ay raboorkii iyo cabashooyinka ay qabaan u gudbiyaan taliyaasha colalkuna ay taliska u soo gudbiyaan sida haddaba la sameeyay haddana aan shaqadooda ku guda jirno qof walba ay xuquuqdeeda ay maqanta oo weli aan waxelin qaladkaas yarka ahaa jira qaladkaas yarkaana waa la saxa waxaan rabaa marka inaan u sheego inaan la aqbalaynin ama aan loo dul qaadan karin in annagoo ilaalinayna systemka ciidanka iyo nidaamka ciidanka shakhsiyaad gaar ah inay sameeyaan muxuu ahaa ii sheega waxyaabo ka baxsan anshaxa ciidanka inay sameeyaan arrintaas arrin loo dul qaadan karo ma ahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa guud ahaan meel kasta oo ay joogaan inaan ilaalino kala dambeynta iyo nidaamka ciidanka inaan ilaalino anshaxa ciidanka inaan ka fogaano wax allaala iyo wixii muuji kara muxuu ahaa ii sheega inay lid ku yihiin dishibliinka ciidanka markaan taa ugu gudbo runtii waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan guud ahaan meel kasta oo ay joogaan aan u diro runtii bogaadin howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay ay ku jireen iyo bilihii la soo dhaafaba iyo maalmihii la soo dhaafaba ay ku jireen runtii waxa laga gaalay guulo aad iyo aad u weyn oo runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen howlgalladii ugu muhiimsanaa ilaahay idinkiisa howlgalladaas ayagana waa sii wadi doonaa waxa laga yaabaa bulshada Soomaaliyeed inay isweydiinayaan war qaraxyadii faraha badnay oo muxuu ahaa ii sheegay bulshada mar walba ku dhici jiray xaggay aadeen laakiin waxaan rabaa inaan halkan bulshada Soomaaliyeed kala wadaago sanadka aan soo dhaafnay runtii aan dareemi karno in nimanka nabadiidka ah muxuu ahaa ii sheegay dhibaatooyinka ay shacabka u geysan jireen ay hoos u dhacday in taas bedelkeeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ay go'aansadeen meeshii bulshadooda dhiigoodu daada lahay in ayaga dhiigoodu daato maadaama ay tuutaha u gashteen ay u dhaarteen ayna tahay waajib muqaddis ah oo saaran qof walba oo xubin ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu naftiisa u huro muxuu ahaa ii sheegay bulshadiisa waxaan rabaa markaan wax yar ka xuso sanadka aan soo dhaafnay gudihiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xisaabaad gaadiidka marka laga tago waxyaabaha dagaalada kale ama waxyaabaha kale marka laga tago gaadiidka qaraxa ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu dhufto tiradiisu waxay gaaraysaa 16 gaari oo qarax 16 kaas gaari haddaysan isu dhigin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku dhibaatay lahayn bulshada Soomaaliyeed waxay ku dhibaatay lahayn hooyooyinka iyo aabbayaasha waxay ku dhibaatay lahayn caruurta waxay ku burbur lahaayeen ganacsiga dadka Soomaaliyeed runtii taas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aadan runtii ugu amaanaya iyo guud ahaan ciidamada kale ee garabka u ah oo haday noqon lahaayeen hay'adaha kala duwan ee amniga waa ku amaanaya runtii arintaasna dabcan waa sii wadi doonaa ilaahay idankiis waana xooji doonaa
waxaan rabaa marka inaan arrinta hadalkayga kusoo gabagabeeyo runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ka dalbanaynaa maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay qaateen mas'uuliyadda inta la eg ay wajahayaan howlaha adag waajibna ay ku tahay runtii uga soo fogaadeen qoysaskoodii uga soo fogaadeen muxuu ahay sheegay guryahoodii oo hawdka ay ugu jiraan waxaan ka dalbanaynaa shacbiga Soomaaliyeed sida haddaba ay muxuu ahay sheegay hiilka iyo hooda ay noola garab taagan yihiin inay caawiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay taageero u muujiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wadaagaan xogaha si ay guulaha ay hadda ku socdaan ay u sii laabaan nimanka nabadiidkana looga saaro dalka hadalka taliya Odawa ayaa imaanaya xilli shalay agaarka madaxtooyada ay xirteen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka soo baxay aagaga difaaca ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan maadaama sida hadalka ay u dhigeen ay waayeen xuquuqdii ciidanimo qaar ka mid ah ciidamada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo sanad ah ay ku jiraan difaacyada ciidamada balse aysan helin xuquuqaadkii ay lahaayeen oo ay ugu horeyso mushaaraadka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya markana xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa goordhow xilka laga qaaday kadib markii ay kalsoonida kala noqdeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducaale ayaa waxa lagu bedelay xildhibaan Amos Kimunya sida ay wariyeen warbaahinta dalka Kenya xilka qaadistan ayaa ahayd mid la filayay kadib markii dhawaan ay kan badan 130 mudan ay mooshin ka dhan ah isaga u gudbiyeen madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga talada dalkaasi hayay Jubilee Aadan Barre Ducaale ayaa sidoo kale muddooyinkii la soo dhaafay wajahayay hubanti la'aan iyo culays kaga imaanayay dhinaca baarlamaanka sidoo kale wuxuu xilka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka hayay tan iyo doorashadii ka dhacday sanadkii 2013 gudaha dalkaasi Kenya xildhibaan Aadan Barre oo Soomaali Kenyan ah lagana soo doortay gobolada waqooyi bari ayaa ka mid ahaa xildhibaanada firfircoon ee ku jira xisbiga talada haya ee Jubilee balse ugu dambeyn maanta ayaa laga tuuray in uu sii ahaado hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya inta badan dadka baraha bulshada wax ku falaqeeya gaar ahaan Soomaalida ayaa aad u soo dhaweeyay in Aadan Barre laga tuuro hogaamiyaha aqlabiyadda waxayna ku eedeynayeen inuu yahay shakhsi inta badan inkira xuquuqda Soomaaliya ee ku aadan badda iyo dhulka hagaaga markana qaramadii midoobay ayaa waxay dacwad ku soo oogaysaa mas'uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Cali Maxamed Geedi waxaana lagu eedeynayaa in si qalad ah ay u isticmaaleen astaanta qaramada midoobay United Nations Academy of Somalia ayaa waxa Geedi fadhi u ah oo hogaaminaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Geedi waxaana qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay lagu sheegay in aanu jirin haba yaraatee wax xiriir ah oo ka dhaxeeya qaramada midoobay iyo waxa loogu yeeray United Nations Academy of Somalia ee uu madaxda ka yahay ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi adeegsiga sharciga ah ee magaca iyo astaanta qaramada midoobay waxay kali u dhowran tahay cidii u martaa geedi socod adag ee deeta ruqsad qoran oo saxiixan ka haysata qaramada midoobay gaar ahaan xogayaha guud ee ururkaasi ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay waxa uu qoraalkan inta raaciyay in United Nations Academy of Somalia aanay marnaba marin wadiiqadaas isla markaana aanay fasax u helin adeegsiga astaanta iyo magaca qaramada midoobay balse ay tahay hay'ad leh ujeedooyin ganacsi oo iyada u gaar ah xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa isna sheegay in aanu jirin wax xiriir ah oo kala dhaxeeya United Nations Academy of Somalia waxaana loo jeediyay inay joojiyaan adeegsiga astaanta iyo magaca qaramada midoobay haddii kale lagu oogi doona tilaabo sharci oo caalami ah waxaana suuragal ah in qaramada midoobay ay ku dacweyso ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi in fasax la'aan uu isticmaalay magaca iyo astaanta qaramada midoobay markana ciidamada commandoska xooga dalka ee Danab iyo Gorgor oo si wada jir ah u howlgalaya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanada Jilib Marko iyo Gandarsho hoos yimaada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ujeedkiisu ahaa in al-shabaab laga xoreeyo dhulka xeebta ah ee u dhaxeeya deegaanka Jasiira iyo degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha guutada 16aad ee commandoska xooga dalka ee Danab Gaashaale Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa idaacada ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidanka intii ay howlgalka ka xoreynayeen ay halkaasi ku dileen 2 sargaal oo uu sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab taliya Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa saraakiisha la dilay waxa uu magacyadooda ku kala sheegay Xerow iyo Ciise Yare
ciidamada commandoska xoogga dalka ee Danab iyo Gorgor ayaa haatan waxay wadaan howlgallo baaritaano ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanada Jilimarka iyo Gandarsha ee gobolka Shabeellaha Hoose. Muddooyinkii dambe ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Danab iyo Gorgor ayaa howlgallo ka waday deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. ugu dambeynna xiisadda kacsan ee u dhaxaysa dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalayas ayaa ku riixaysa New Delhi in ay sii xajiso xiriirka dhow ee la leedahay Mareykanka iyo wadamada Japan iyo Australia iyada oo cilaaqaadka ay la lahayd Beijing uu galayo xaalad adag. haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan dal ee haysta nukleerka ay ciidamadooda militariga ku soo daadgurayaan xuduudda dhulka lagu murusan yahay ama aan la helin xal diblomaasiyadeed, waxay horseedi doontaa in India ay hesho xulasho istiraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhan ah Shiinaha, sida uu yiri Harsh Pant oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ee fadhigiisu yahay New Delhi. falcelinta ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ee qalalaasahan ayaa sidoo kale saameyn doona mowqifka xiriirka New Delhi ay la leedahay dalalka deriska ah ee koonfurta Aasiya, halkaasi oo Beijing ay kula loolamayso India, waxayna arrintani go'aamin doontaa in Modi uu meel marin karo hadafkiisa kor u qaadidda sumcadda guud ee India. xiisad ayaa ka dhex taagneyd labada dal ilaa iyo bilowgii bishii May, iyadoo India ay ku eedeysay Shiinaha in ay soo galeen dhulkeeda, taasi oo kicisay xaalad keentay in labada dhinac ay israsaaseeyaan isla markaana halkaas ay ku dhintaan 20 askari oo u dhashay dalka India. waxaana haatan la soo sheegayaa in mar kale ay suuragal tahay in rasaas ay dhex marto ciidamada dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ku sugan xadka iyo dhulka lagu marasan yahay, maadaama mar walba ay isu soo dhawaanayaan ciidamada isla markaana dowlad walba halkaasi ay sii geynayso ciidamo dheeraad ah. guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Qarankaab TV waa naga intaa, tan iyo kulanti dambe intaa ku kulmi doona wararkeen xiga, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Nooli kulanto.